الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد walaalaha aad u qiimaha badan waa idin salaamay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo, dembigiin iyo waalidkiinana ha dhaafo, umuurihiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin sakhiro oo ha idin fududeeyo. waxaan rabaa insha allahu tacaala kiliibkeyga yar inaan ugu faa'iideysto hadduu ilaahay ii fududeeyo sabarka, inaan wax yar ka taabto. mowduucaasina waa mowduuc aad u balaaran, u baahad weyn. kiliibkan yar aan duubi rabana ugama kaaftoomi karo oona kuma soo dhammayn karo, balse laakiin inta yaroo ilaahay iga waafajiya ayaan wax ka taataabanaya. run ahaantii walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala dhowr aayadood ayuu wuxuu noogu tilmaamay khayrka iyo barwaaqada iyo faa'iidooyinka ay leedahay ama dadka sabra ama ilaahay ballanqaadka uu u ballanqaaday aad bay u fara badan tahay, lama soo koobi karo. ilaahay suuratu aali cimraan ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu. duulka iimaanka laga helayo sabra oo la sabartama ilaahay uu leeyahay. ilaahay waa tii uu leeyahay haddana imtixaan walba markii qofka la imtixaano noocuu rabo ha noqdo, guusha iyo liibaanta iyo ciziga iyo sharafta mar walba waxa uu ku dambeeyaa kuwa sabra oo ilaahay subxaanahu wa tacaala imtixaanada iyo dhibaatada uu ku keeno ama barwaaqada ama wax walba ku sabra ayay mar walba guusha iyo liibaanta ku dambeysaa. ilaahay wuxuu tilmaamay suuratu lbaqara walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashiri الsaabiriin. ilaahay wuxuu leeyahay waxaan igu imtixaanaynaa shay ayaan igu imtixaanaynaa oo ka mid ah cabsida, gaajada, xoolaha oo nusqaamo iyo maxaan ku ihahdaa nafsadiina iyo thamaraadkii ay kulligood nusqaan ay ka timaado ayaan igu imtixaanaynaa. laakiin guusha waxaa iska leh, waxaad u bishaaraysaa kuwa intaasoo dhan ku sabra, cabsida ku sabra, gaajada ku sabra, maalkoo ka nusqaamo iyo thamaraadkii mirihii wixii ay waayaan ku sabra. guusha iyo ciziga kuwaas ayay u dambeysaa. ilaah uu leeyahay wabashiri الsaabiriin, u bishaaray kuwa sabra ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. sidoo kale ilaahay wuxuu leeyahay kuwa sabra ajarkooda waxaan u oofinaynaa xisaab la-aan. inamaa yuwafa الsaabiruun ajrahum bigayri xisaab. dadka sabra ajarkooda bilaa xisaab weeyaan, looma xisaabiyo ajarka la siiyo. waa kuwa dhibaatooyinka ku sabra, wax walba oo markaasi dhib ah ku yimaada ku sabra weeyaan. ilaahay aad u ammaanaya subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyahay mar walba hadday dhibaato idinla soo gudboonaato, hadday dhibaato idin taabato, hadday muruga idin taabato, istaciinuu biالsabri waالsalaaة, waxaad kaalmaysataan sabarka iyo salaada. sabarka iyo salaada kaalmaysta. istaciinuu biالsabri waالsalaaة ina allaha maca الsaabiriin. ilaahay wuxuu la jiraa mar walba kuwa sabraya, dhibta ku sabraya, gaajada ku sabraya, oonka ku sabraya, macsiyo inaysan samaynin oo naftooda celiya ka celiya ku sabraya ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba la jiraa. subxaanahu wa tacaala ilaahay mar walba ayuu la jiraa. maxaa yeelay naftaada adiga kugu jirto waxaan mar walbay rabtaa inay xumaantii kuu qurxiso, xumaantii ay kuu jiido. adigana markaad la dagaalamaysid aad leedahay ilaahay ka cabso, aadan rabin xumaantii inaad samayso, aad ku celinaysid, aad ku sabraysid wixii ilaahay ku amray inaadan xumaan iyo macsi oo qashin aadan aadin. ilaahay ku amray wixii ilaahay ku amray aad ku sabraysid, ilaahay markaas waa kula jiraa subxaanahu wa tacaala. marka walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala
sabarkaasi oo qofka uu sabrayo wax badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku siinaya subxaanahu wa tacaala. tan waxaan ugu filanba ilaahay uu leeyahay u bishaaray kuwa sabraya, iyo ay ilaahay uu leeyahay kuwa sabraya ajarkooda waxaa loo oofiya oo la siiyaa xisaab la-aan. intaas ayaaba nagu filan fadliga uu leeyahay sabarka. markaana ninkii sabar laga qadiya wax badan ayaa laga qariyey. ninkii laga qadasiiya aan la siinin, sabar aan la siinin, wax badan ayuu waayey, wax badan ayuu waayey. laakiin waxaa liibaanay, guuleystay dadka sabraya oo ilaahay ku arsaaqay, samirka ku arsaaqay, dadkaasi ayaa guuleystay oo guul iyo cizi gaaray. marka walaalayaal, xadiis uu warinayo abi malik warinaya ayaa rasuulka sal ly slam, abi malik alxaarith bin caasim alcashcariy radia allahu canhu, xadiidkaasi waxaa soo saaraya muslim. rasuulka wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, rasuulka wuxuu yihi sal slam, alduhuuru shatru liimaan, weysiqaadka ama daahir ahaanshada waa iimaanka qeyb ka mid ah. qofki inuu daahir ahaado waa qeyb iimaanka ka mid ah. walxamdu lilaahi, inuu qofki yidhaahdo alxamdu lilah, inuu yidhaahdana tamla-u lmiisaan, miisaanka ayay buuxisaa. wasubxaana allah walxamdu lilaahi tamla-aan aw tamla-u maa bayna alsamaa'i waalard. subxaana allah walxamdu lilah qofki inuu yidhaahdo waxay buuxinaysaa cirka, ama midkooda wuxuu buuxinayaa cirka iyo dhulka inta udhexayso ayay buuxinayaan waay. marka cirka iyo dhulka inta udhexayso ayay buuxinayaan subxaana allahi walxamdu lilah. sidoo kale nabiga wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, salaadu inay tahay nuur, inay tahay qofka salaada dugta inuu ka qaadayo nuur, inuu kasii qaadayo. sadaqadan inay tahay burhaan, ay adiga xujo kuu tahayo sadaqadii maxaan ku yidhaahdaa adiga xujay kuu naqanayso. wasabru diyaa, sabarkan inuu yahay iftiin, inuu yahay waalqur'aanu xujatun laka aw calayka, qur-aankana inuu adiga kuu doodo oo maalinta qiyaama markii la tago adiga inuu kuu doodo u yidhaahdo ilaahu ninkaani wuu akrin jiray, waan igu camal fali jiray, inuu ku yidhaahdo uu kuu doodo, ama inuu adiga kaa doodo uu ku yidhaahdo ilaahu ninkaani waa i bartay, mana igu camal fali jirin, mana uusan i akrin jirin. midaasi labadaasi ayay naqanaysaa qur-aanka maalinta qiyaamaha. dadka oo dhan way kala hayaan, dadka markay kala hayaan fabaa'icu nafsahu, nafsadiis ayuu iibgeynayaa, ama nafsadiisa wuu soo xureynayaa, ama nafsadiisa ayuu soo halaagayaa oo macsiyo iyo balaayo iyo qashin ayuu nafsadiisa u sababayaa. marka walaalayaal, mahalu shaahidkeena wuxuu ahaa samirka inuu yahay iftiin, samirka inuu yahay iftiin. oo maxaa yeelay qofka samirka badan wax la heli kara ma ahan, wax la gaari karana ma ahan. marka inaan anaga in badan aan ku dadaalno, inaan ku sabarno dhibaatooyinka nala soo gudboonayaan, si rabtaba ha naqato, waxay rabtaba ha naqato, inaan maantay anaga aan ku sabarno. maxaan ku yidhaahdaa dacwada ku jirkeeda inaan ku sabarno. sababta maxaa yeelay markaad adiga u istaagtid inaad dadka wax gaarsiisid ama dadka wax u sheegtid, cay ayaa ku taalo, waa lagu caynayaa. hadday waxaa dhici karto in lagu dhibaateeyo, jirdil iyo wax kale lagu geysto ayaa dhici kartaa, inaad adigan aad ku sabartid. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala luqmaan alxakiim markii uu amrayay ayuu ku yiri waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nas'aluka risqa. ehelkaaga far salaada far, wastabir calayha kuna sabr. marka waxaa la amray salaadii amr, salaada markaa amartidna ku samir. marka salaada markaa adiga aad qofka amartid aad yidhaahdid war salaada duko, mar maxaan ku yidhaahdaa saan samey, waxaan ka har, xumaantan ka har, markaad yidhaahdid dhibaato kuga imaanaysaa. laga yaabaa in lagu dhibaateeyo, laga yaabaa in dhibka lagu geysto, hataa laga yaaba in lagu xiro. adiga marka ku samir, sabarka qaado oo dhibaatadaasi dacwadan aad u wadid, diintan faafinteeda ku samir. markaad xaqa sheegtid waa lagu nacayaa, dadka way ku dhibaateynayaan,
waa lagula cololtamayaa. intaasoo dhan adiga ha fiirinin, sabar. oo dadka markay rabaan ay wax kaa sheegaan ama si kasta ay noqoto, adigu waxaa leedahay laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura, abaalmarin iyo mahad celin toona idinkama rabno, anaga waxaan u samaynaynaa waxay tahay ilaahay dartiisa. marka walaalayaal, samirka waa shay aan la heli karin, uusan qofka bani aadamka iskasa samayn karin ama iska raaraadin karo ma ahan. waa wax ilaahay bixiya. ilaahay subxaanahu wa tacaala aan weydiisano inuu nagu arsaaqo samir, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu arsaaqo. waxaa nagu filan xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam, weligiisa nafsadiisa dhib loo geystay nabiga ma caarsanin, mana ka caroonin salawaatu rabbi wasalaamu calayh. laakiin nabiga markii diinka ilaahay loo gafo, nabiga wuu caroon jiray sallallahu calayhi wasalam. anaga maanta waa cagsigeedaan nahay. haddaan cirdigeena, sharafkeena anaga meel loogu dhaco, ama reerka anaga aan kasoo jeedno haddii meel loogu dhaco, kuma sabrayno oo waan jawaabta iska markii aan bixinaa. laakiin diinka ilaahay loo gafayo, sharaftii nabi maxamed meel loogu dhacayo, ma dhaqaaqayno. samir aan ku aamusno ma lihin. iska maxaan ku irahdaa, markii nabiga meel loogu dhaco oo diinka ilaahay meel loogu dhaco, anaga jawaab ma bixino oo ma difaacno oo kama hadalno oo waa ka aamusnaa. laakiin cirdigeena iyo sharafkeena markii meel loogu dhacana, iska markii waxaan bixinaa jawaab oo degdeg ah. marka walaalayaal, ilaahay subxaanahu wa tacaala hana barakeeyo, ilaahay dunuubteena ha dhaafo, ilaahay aan weydiisano inuu ilaahay nagu arsaaqo sabir, inuu ilaahay nagu arsaaqo sabir, inuu ilaahay na siiyo sabr, inuu ilaahay na siiyo subxaanahu wa tacaala. qofkii la siiyana wax weyn ayaa la siiyey, qofkii laga qadiisiyana wax weyn ayaa laga qadiisiyey. marka walaalayaal, inta aan dadaali karno, oon sabarka ku dadaali karno, oon sabri karno, aan sabarno. wax la heli kara ma ahan, lianna wax maantay fadligiisa iyo faa'iida uu leeyahayna meeshaan lagu soo koobi karo ma ahan. lianna rasuulku wuxuu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam, xadiidkii uu warinayey, xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayeen, abi saciid iyo abi hurayra isla warinayay, labadood ilaahay ka raali naqde. rasuulku sal slam uu yihi, maa yusiibu lmuslim, qofka muslimka ma asiibo daal iyo dhibaato iyo murugo iyo hami iyo dhib ma asiibaan, iyo dhammaan isku soo aroori, dhib, murugo iyo maxaan ku irahdaa hami iyo kulli qofka muslimka ma galo. xataa wuxuu rasul sal slam, hadday qodax muddo, hataa shawka, hadday qodax xataa hadday muddo, ilaa kafara allahu biha min khadaaya. haddii ay saas dhacdo, inuu qofka muslimka ay asiibto murugo iyo hami iyo cariiri, haddii qofkii muslimkii ay casiibto, ay ku dhacdo, ama hataa qodax hadday muddo, rasuul sal slam, ilaahay wuxuu ku dhaafaa dunuubtiisa, ayuu ilaahay subxaana wa taala, gafafkiisa ayuu ilaahay ku dhaafaa subxaana wa tacaala. markaa ku sabartid waay, jirada aad jiran tahay, jirada ku hayso, xanuunka ku hayo, haddaa ku sabartid, ilaahay subxaana wa tacaala ajar ayuu ku siinayaa. haweeney ayaa dhici jirtay zamankii rasuulka sala allahu calayhi wasalam. haweeneydii markay dhacdo ayaa waxay dhici jirtay inay jirkeeda maradii ay ka fidmato ayay dhici jirtay. markaasay rasuulka u timidi, markaasay ku yidhi, yaa rasuulallah, rasuulkii allow, aniga dadka suuxaan ahay, waan dhacaa, oo markaan dhaco waa qaabmaa. markaasay yidhi, rasuulkii allow, ilaahay ii bari. markaasuu rasuulku ku yidhi, in shi'ti sabarti walaka fi ljanna, haddaa jiradani aad ku sabartid ood maxaa ku leedahay aad ku sabartid, janna ayaad leedahay. wa amaa ilaahay ayaan kuu barinayaa, ilaahayna wuu ku caafinayaa, beritoole adiga ayaa kuu taalaa. marka adigaa taqaanid, adiga rabbigaaga waaye, inaad janno gelaysid, inaad naar gelaysid, allahu aclam. laakiin haddaad ku sabartid, walaka fi ljanna, jiradan ku haysa haddaad ku sabartid, janno ayaad leedahay. markaasay fikirtay ku tiri, yaa rasuul allah, jirida iska hayso, laakiin hal ilaahay ii weydii, markaan dhaco inaysan jirkeyga qaawanin, inuu jirkeyga owladeyda aysan fiidmanin, oonan aysan qaawanaanin, taas ilaahay ii weydii ayay tiri.
gabadhii saxaabiyad ahayd radia allahu canha wa ardaaha. marka dadkaasi waxaa ku weyneyd janna ayaa ku weyneyd. anagan maanta jannada waxaad u malaysaaba saan anaga u dhaqmayno dhaqankeena iyo ficladeena markaad aragtid wax anaga aan samaynayno waxaa u malaysaaba in jannada loogu bishaareeyey lana yidhaahday jannadaad gelaysaan. war sidaas ma aha. ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahay ayatmacu kullu mri'in minhum an yudkhala jannata naciim. ma qof kasto idinka mid ah mama wuxuu u maleeyey inuu iska gelayo jannatu naciim. marka sidaas ma ahan walaalayaal, aan ku sabarno maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyinka nagu dhacaya, musiibooyinka nagu dhacaya, maxaan ku idhaahdaa murugada, dhibaatadana wax walbo oo na soo gaarayo inaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka ajar xisaabsano, aan ku sabarno. sabarka wax weyn weeyaan, lama heli karo. qofkii ilaahay sabar uu siiyey wax weyn ayuu ilaahay siiyey. intii sabar aan la siinayna waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu arsaaqo sabar, inuu ilaahay nagu arsaaqo oo na dhadhansiiyo maalinta qiyaamana kuwii laga abaalmariyey sabarkooda inuu ilaahay naga dhigo in sha allahu tacaala. kilibkayga waan soo gaabinayaa. mowduucan asiga waa weyn yahay, waa baaxad weyn yahay, saan horey u sheegayba mana ka gaari karno. marka intaasi waxay iga ahayd buraarujin iyo xasuusin ayay iga ahayd in sha allahu tacaala. wixii aan gafayna waa nafsadeeda iyo shaytaan ayay ka ahaatay. ilaahay rasuulkiisa beri ayay ka yihiin. wixii aan saxayna oo aan si xaq aha aan u sheegayna ilaahay xaggiis ayay ka ahaatay. hada wabillahi towfiiq. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.